damqasho iyo dareen dhalinyaranimo. 29 Oktoobar oo ahayd maalinkii musiibadii Soobe ay dhacday ilaa maanta oo bisha November ay tahay 2, waxaa jiray dhalinyaro u istaagay caawinta iyo u gargaaridda dadkii wax ku noqday qaraxii Soobe. Waxaa hawshaas shariifka u istaagay koox dhalinyaro oo reer Muqdisho ah, iskoodna isku xilqaamay dadkana gaarsiinaya cunto, cabitaan iyo deeq lacageed. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Marka ugu horeysa Allah Rabbi Subhanahu wa Ta'ala mahad iskale. Markii xigta waxaan ahayn dhalinyaro Soomaaliyeed oo iskood isku abaabulay oo sameynayay gurmadkii dhibaatadii ka dhacday 29kii bishii Oktoobar qaraxii ka dhacay Soobe 2. dhalinyaradani waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka kala yimid jaamacadaha magaalada Muqdisho, ururada Muqdisho ka dhisan iyo dhalinyaro iskood isu soo xilqaamay iyagu iskood isku soo diray. Ma jirto cid koox ka socotay ama urur ku socotay ama magac ku socotay. dhalinyaradani waxay iskugu yimaadeen damiirka iyo dareenka Soomaalinimo kaas oo ku aadan in ay gurmad u sameeyaan walaalahoodii dhibta ku gaadhay qaraxii Soobe 2. Ilaahay baa mahad iskale. Gurmadkan wuxuu noo soo socday muddo 4 maalmood ah. Waxa Ilaahay mahadii ah inaan maanta gabagabadii gurmadka aan joogno oo aan deeqdii ugu dambeysay aan gaarsiinayno dadkii walaalaheen ahaa. Kaalmada saaka waxa aan gaarsiinay isbitaalka Somali Sudanese iyo Kalkaal iyo Shaafi oo dad bukaan ah oo dhibaatada soo gaadhay ay ku jireen, annagoo ka tixraacayna macluumaad iyo xog rasmi ah oo ay nasiyeen qayb naga mid ahayd oo dhalinyaro ahayd oo u dirnay isbitaalada si ay nagu keenaan warbixin rasmi ah oo aan ugu bees gareyno dhibaatada gurmadka aan soo sameynay. runtii waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Ilaahay Rabbi Subhanahu wa Ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu masiibooyinka iyo dhibaatooyinka dalkeena intaas halkaan nagaga hakiyo. magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Xasan. waxaan ka mid ahay dhalinyaradii bariyahan u taagnayd muddadii 4 maalin ee u gurmashada dadkii ku waxyeelooday qaraxyadii Soobe. maanta waxaan taaganahay gunaanadkii maalintii afraad. waxaan haddeer u diyaar garoobaynaa waxay tahay waxaan walaalihii ganacsatada ka soo aroorinay inaan gaarsiino walaalihii ku dhibaataysnaa isbitaalada. insha Allah maanta waa gunaanadkii waana u taagnaanaynaa. dhibaatooyinka aad bay u fara badan yihiin. runtii waa mid aan bariyahan la joogi weynay. danqashadaan bulshadan u soo danqanay anaga iyo ardadii ah maadaama jaamacadiina loo soo fasaxay waxaan garowsanay inaan isxilqaan aan ugu soo istaagno walaalaheena ku dhibaataysan isbitaalada. anagana waxaan awoodnay kaliya waxay ahayd xooggeena iyo waqtigeena waana gelinay alxamdulillah. intaan in ka badan waa rajaynaynaa inaan u taagnaan bulshadeena dhibaato walba aan ka jawaabno insha Allah. waxaan u soo baxnay halka u soo istaagnay annagoo oo muddo shaqeynayay muddo 4 biri ah maanta ku 4 ah. waxaan halka u taagnay inaan caawino walaalaheena Soomaaliyeed ee dhibaatada ka soo gaartay Soobe 2. Ilaahay nooma keena dhib kale inuu noo soo gaarsiiyo ama dhibaato kale halka nooga imaato. dadka dhan uma istaagaan hawl ummad ka wada dhaxayso, balse dhalintan waxa u istaageen hawshaas inay qabtaan mas'uuliyadna iska saaraan. dadka waxaa kala saara xilliga iyo xaaladaha. dhalinyaradana waxa ay mudan yihiin hawshooda in lagu taageero. la mid noqo dhalintan oo kale oo caawi dadkaaga xilliga adag.